بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأي وحن سلام يا وزير هذا صاحب هذا قرباه كتاجن وآه جد الدفاع دولة بوتلان شعب كثير بوتلان صحافته لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا وحن هالكن نسقون وبجت هاي صدق هي لو أعتقد بيشي ماي لو كون يسدد يطول قاموا كسب حي جد الدفاع دولة بوتلان وهالكن لو جت شيء ده شعبك عيدا ماذا شعبك غير بوتلان كوشرا قعنتا قوني قوستدا قوامداس waxaan u aqri doonaa wasiirka amniga waxaan si rabaa inaan ka hormariyo inaan u sheego shacabka reer Puntland iyo ciidamadaba in lagu dhaqmi doono qodobadaas sidii yihiin lagu dhaqmi doono aan naxariis yeelan doonin waxaan u baaqayaa shacabka ku jira gacanta gooni goostada inay gacan siiyaan ciidamadooda ku wajahan sool ee dhiigooda u daadinaya inay xoreeyaan dadka madaxa laga garaacay 10 sano ee diloobay ciidamadaas waa ciidamadii ka qaadi lahaa gudnimada gubaysiga soo celin lahaa sharaftoodii iyo karaamadoodii dadkaasi waxay ka mid ahaayeen ama ay ahaayeen dadkii ugu taariikhda weynaa dadka Soomaaliyeed bay ka mid ahaayeen waxa loo baahan yahay in laga ciidamadaas ay gacan siiyaan soo dhaweeyaan u diyaar garoobaan xogta siiyaan meesha wax ka jiraan sheegaan waxaan u mahad celinayaa odayaashii sida bareerka ah uga hadlay laascaan dhexdooda iyagu jooga iyaga cidda ka gabanay waxa loo baahan yahay in dad naftu mar bay baxdaa war dagaalama intaas dhiban weeyaan bay ahayd maamaha Soomaaliyeed baa ahayd war waxa jira sheega oo dagaalama oo u diyaar garooba in aad gacan siisaan ciidamada idinku soo wajahan reer Puntland ma aha Puntland waa kuwii aad dhisateen waxay u socotaa inaad karaamadiina israftiina ay soo celiyaan waxay u socdaan inaad noolaataan oo sharaf iyo karaama aad ku noolaataan waxay u socdaan inay soo celiyaan karaamadii iyo magaca aad lahaydeen iyo sharafta aad lahaydeen waxaan ku guwaabanayaa dadka halka jooga cidii ku cad qodobadaas halka ku jira uu akhriyo doono wasiirka arrimaha amnigu cidii ay ku cadaato in lagu qaadi doono qodobadaas la dili doono xoolahooda la wareegi doono madaxa laga garaaci doono haddii ay ka qayb qaataan waxa ay goostada ay wadaan nimanka halka jooga marka waxba yaan magaciisana waxa ku soo dhawaanaya wasiirka amniga waxaan halka salaamayaa wasiirada saaxiibada oo halkayga ila taagan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda dhammaan dadweynaha reer Puntland iyo madaxdiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobadan halkan sida wasiirkayga horeeyay uu sheegay ee ka kooban 11 qodob waxay ka soo baxeen shirkii guddiga difaaca dowladda Puntland qodobada ayaan markaa idin akhriyayaa إن شاء الله نوحر شيئا سدا لو أخريه سدا أيهين إنا وحلاقة بدل دونين سدا أيهين يكون دقنجل دونان إن شاء الله قضب كواد وحلاقوا ورجلنا يا شعب غير بوتلان إن دولة بوتلان أي كجو أنت هاي حرينتا قبل كسول وحرينتا قبل كسول يدمان ولك إن جمعان محوها هذا جوهست نمبر لبا aragti kasta oo ka soo horjeeda Puntland midnimadeeda wada jirkeeda iyo xoreynteeda waa dambi qaran cidii aaminsanna waxa loo aqoonsanayaa u gargaaracdo sida daraadeed waxa lagu qaadayaa xeerka ciqaabta qodobka labaad hub kasta oo ku sifoobay ama loo arko inuu lid ku yahay xoreynta dhulka maqan wuxuu la mid noqonayaa hubka cadowga qodobka afraad taliye ciidan iyo mas'uul kasta oo xil ka haya maamulka Hargeysa oo ka soo baxa kana soo wareega muddada howlgalku socoto wuxuu mutaysanayaa abaalmarin qodobka shanaad qof kasta oo ka soo jeeda deegaamada Puntland oo u shaqeeya maamulka Hargeysa kana tanaasuli waaya hagardaamada iyo waxyeelaynta shacabka reer Puntland wuxuu mudanayaa xeerka ciqaabta Puntland
qodobka lixaad qof kasta oo cadowga Puntland qariya ama gabaad u noqda ama gabaad siiya isagoo ujeedadiisu tahay in lagu waxyeeleeyo shacabka iyo dawladda Puntland qofkaas wuxuu la dambi yahay cadowga uu qariyay wuxuuna ku sifoobayaa cadow waxaana lala tiigsanayaa sharciga qodobka toddobaad qof kasta oo gacan siiya qof u shaqeeya maamulka Hargeysa oo ay ku caddaato khiyaamo jaajusnimo ama siin xog waa dil aan lahayn mag qodobka sideedaad ma laha wax mag ah ama godob taliyaha askariga ama mas'uulka ka soo jeeda gobollada Puntland oo lagu dilo dagaalka isagoo u diriraya maamulka Hargeysa ee ah cadowga inaga soo horjeeda qodobka sagaalaad hanti kasta oo uu leeyahay qof reer Puntland oo loogu shaqeynayo maamulka Hargeysa waxa la wareegaya dawladda Puntland qodobka tobnaad maxkamadda ciidamadu waxa ay waajibkeeda ka gudanaysa cid kasta oo faldambiyeed ka geysata goobta dagaalka sida dhac kufsi amar diido dil loo geysto dad rayida ama cid kale oo ka tirsan ciidamada iyo wixii la mid ah qodobka ugu dambeeya qodobka 11aad dawladda Puntland waxay caddaynaysaa in aysan cadow ku ahayn shacabka ku nool gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya nabadgelyadooda iyo jiritaankooda isla markaana waxa ay soo dhaweynaysaa cid kasta oo doonaysa xoojinta wadajirka iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed iyo xasiloonidooda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.